milatariga Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaal saaka ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaadhka ee maamulka Koonfur Galbeed. Dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada milatariga Soomaaliya oo kaashanaya kuwa ammaanka ee maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda cadu ah madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagren. Milatariga Soomaaliya ayaa kooxda dagaalka soo qaaday ku tilmaamay koox khawaarij ah fuliya dhinaca kalena doonayay inay carqaladeeyaan amniga iyo nabadgelyada maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada caasimadda ee maamulkaasi. Sidoo kale ciidanka ayaa sheegay in ay jab xoogan soo gaarsiiyeen kooxihii halkaasi soo weeraray, iyagoo dhinaca kalena sheegay inay soo bandhigi doonaan natiijada kama dambaysta ah ee howlgalkaasi. Sidoo kale milatariga waxa ay sheegeen inay weli ku raad joogaan baacsiga kooxihii halkaasi soo weeraray. War-saxaafadeed ka soo baxay milatariga Soomaaliya ayaana lagu yidhi sida tan: taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu bulshada Soomaaliyeed la wadaagayaa in ciidanka qaranka ay saaka aroortii fashiliyeen weerar fulaynimo ah oo ay soo qaadeen kooxaha khawaarijta kaasoo lagu bartilmaameedsaday xarunta ku meel gaadhka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo. Ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa si geesinimo iyo foojignaan ah uga hortagay weerarkaasi, iyagoo gaarsiiyay cadowga khasaare xoogan oo isugu jira naf iyo maal. Khawaarijta ayaa laga kala eriyay gudaha iyo daafaha magaalada iyagoo u firxaday si fulaynimo ah, halka ay ciidanka ammaanka weli wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo tirada rasmiga ah ee khasaaraha soo gaaray cadowga. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doonaa faahfaahinta iyo natiijada rasmiga ah ee howlgalka marka la soo gabagabeeyo tirakoobka iyo xaqiijinta xogaha la xiriira khasaaraha cadowga. Ugu dambeyn, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu hambaliyo iyo bogaadin u diraya geesiyaasha ciidanka qaranka ee habeen iyo maalinba u taagan difaaca qarannimada, amniga, midnimada iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Taliska ayaa sidoo kale ku ammaanay shacabka Soomaaliyeed taageerada ay mar walba la garab taagan yihiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka laga yimaado war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa saaka soo bandhigay meydad aad u fara badan oo ka mid ah maleeshiyaadkii saaka soo weeraray magaalada Baydhabo ee daacadda u ahaa madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagren, iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo halkaasi ay kaga carareen. Horey dowladda federaalka ayaa u sheegtay in kooxaha daacadda u Cabdicasiis Laftagren ay dhinaca kale garab saar la leeyihiin kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, iyagoo sheegay in ay yihiin cadow ku soo duulay deegaanada Koonfur Galbeed. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qabsatay magaalada Baydhabo kadib markii halkaasi uu iskaga cararay madaxweynihii maamulkaasi, iyadoo halkaasi laga qabtay doorasho ay hagahayeen guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka. waxaana la filayaa maanta in magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyo arrinta xubnaha golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed, kadibna la guda galo doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed ee 5 sano ee soo socoto. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgalle amniga lagu xaqiijinaya ka wada deegaano badan oo ka tirsan deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoo shacabka deegaanadaasi ugu baaqday inay garab siiyaan ciidanka milatariga Soomaaliya. kooxaha daacadda waa Laftagren oo hanjabaado ka soo dirahaya duurka ayaa hadda u muuqda inay qaadahayaan qorshe ay ku doonayaan in ay isku muujiyaan, dhinaca kalena ay ku soo bandhigaan awoodooda ah in ay soo weerari karaan gudaha magaalada Baydhabo, sidoo kalena ay tusaan beesha caalamka iyo saaxiibadooda kale ee ku garab taagan dagaalkan ka dhanka ciidamada dowladda in ay leeyihiin awood ay kaga hortagaan dowladda federaalka Soomaaliya. inkastoo Laftagren isagoo haysta ciidan, maamul, golo wasiiro iyo hub aad u tiro badan uu magaalada Baydhabo iskaga carraabay xilli galaba kadib markii ay la wareegeen halkaasi ciidamada milatariga Soomaaliya.